kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa heshiis la gaartay ciyaaraanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo xulka qaranka Wales Aaron Ramsey si uu ugu biiro safka naadiga reer Talyaani ee Bianconero. Shabakada caanka ee Sky Sport ayaana shaacisay in kooxda kubadda cagta ee Juventus inay heshiis la gaadhay Aaron Ramsey si uu u yimaado Allianz Stadium suuqa xagaaga ee soo aadan kadib markii uu soo idlaaday heshiiska uu kooxda Arsenal ama suuqa haatan furan ee Janaayo. wargeyska Talyaaniga ah ee Calcio Mercato ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in wakiilka Aaron Ramsey uu gaari doono magaalada Torino kulanka ee kooxaha Juventus iyo AC Milan ku wada ciyaari doonaan Italian Super Cup-ka 16 bishan Janaayo si loo go'aamiyo heshiiska iyo weliba xilliga uu mari doono tijaabada caafimaadka. ciyaarahankan ayaa la filayaa inuu helo mushaar sanadle ah oo gaarsiisan 6.5 milyan iyo weliba 1.5 milyan oo ah lacagaha gunada. wali lama cadeyn suurtagalnimada uu Aaron Ramsey ugu beeri karo kooxda kubadda cagta ee Juventus bishan Janaayo, balse waxay arrintan ku xirnaan doontaa Arsenal oo ciyaarahankeeda ku doonaysa 20 ilaa 25 milyan oo euro. laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa diyaar u ah inay bixiso 9 ilaa 10 milyan oo euro si ay ugu dhaadhiciso kooxda reer London ee Gunners in ciyaarahankan ugu soo dhaqaaqo Allianz Stadium suuqa xagaaga ee furmi doona bisha June ee sanadkan.